بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشرى إسلام قاسة أمة الصومالية. ما توحى رأينا حوائر كهذا عذر كان دون نواليو أو COVID-19 كنا عم بحي كورونا فيروس. بشرى الصومالية محارمين كوعي قلنا أما مشاهدنا قال لي ناس كأمر لهايان عذر كان كورتكيسة ما دام هذا واحد أو وصوب حدين لهينين. marka COVID-19 يعني sida magaca kaga muuqato cudurkani wuxuu soo shacbahay ama soo caanbaxay 2019 dabayaaqadiisii waana xaddi group of viruses ka tirsan yahay oo family virus ka tirsan yahay markii ugu horeysay cudurka noocan lagu arkay dunida markii ugu horeysay waxa lagu arkay wadanka China gobolkiisa Wuhan isla bishii koowaad sanadkan hadda 2020 bishii January waxa ay WHO cadaysay in cudurkan yahay cudur epidemic ah oo maxaan ku raatay ka jiro gobolada China dhan iyo in adduunka gaari karo sidoo kale cudurkani wuxuu ku bilowday si xaddi fara badan oo bulshada inuu soo ridaya cudurkani marka hore ma ahan cudur la yaqaanay oo sababi jiray maxaan ku raatay si toos bilaadanka dhexdiisa ku faafin jiray oo cudur hadda ku cusub dunida oo ka imaanay inuu xayawaanka inta ku imaado bilaadanka soo gudbahay marka ugu horeysay cudurkani oo soo bilowday wuxuu ka soo bilowday wadanka China cudurkan calaamadihiisa ama astaamaha koowaad uu leeyahay marka uu bilaabanayo qofku wuxuu u bilaabanayaa si hargab kaleeto qofku wuxuu dareemayaa inuu hargab dareemayo kaleeto caawa u maleynayaa laakiin soo cudurku marxalada kiidisa bumara marka qofku hargabka uu dareemayo kaleeto cudurkani wuxuu isku bedeli karaa isla markii pneumonia ama qofka uu soo dareemayo calaamadihiisa marka sii bataan calaamadaha lagu yaqaan oo qofka uu iska dareemi karo waxa kamid ah kow inuu qofku horta qandho badan dareemo inuu qufacayo qofkii in qofkii neefsashadii kaleeto inay yaraato ama ay ku adkaato cudurkan marka hadda lama sheegin wax oo maxaan ku raatay treatment ama daawo oo qofka lagu la tacaalay laakiin waxa la yiri preventionist uu leeyahay oo ugu muhiimsan la sameeyo waxa ah in gacmaha la iska dhaqo adoo adeegsanaysid biyo iyo saabuun iyo wixii kaleeto oo maaragtay oo germs dile ah muddo aad farahaaga dhaqanaysidna ay gaari karto ugu yaraan 20 sekin marka faraha dhaqato kaleeto inaad isticmaashid alcoholki inaan taaban maxaan ku raatay meelaha darbiyada oo kaleeto iyo meelaha maaragtay oo jirkaaga oo maaragtay wax ka soo qaadan kara gacmaha oo kaleeto inaad qofka oo dareemaysid in calaamadaha kale ka muuqdaan oo kaleeto inaad u jirtid meel 1 mitir oo kaleeto ama 3 tilaabo oo kaleeto markaad guriga joogtid oo kaleeto inaan dadka arkaysid in xanuunsan yihiin oo kaleeto aan dhex gelin oo adoo nafsadaada isolated ku sameeyso meel gaar ah ka istaagtid wuxuu kale cudurkani looga hortagi karaa oo prevention isticmaali karta inaad xirtid masks marka adeegsanaysid uma xiranaysid maxaan ku raata in gacmahaaga oo ku taabatid masks qaab loo xiranaya jiro oo u qaadaysid in labada dhigood leeyahay si toos u gashatid marka aad masks isticmaalaysid ka hor aad faraha soo dhaqatid alcohol ku soo dhaqatid iyo oomadiyo kalena ku soo dhameystid marka aad xirtid hadana inaad u dameysid hadana alcohol gacanta iska marisid gloves isticmaashid waxa khatarta ugu dambayso ah qofka laga digaya waxay tahay oo rabo inuu mar walba uu ku digtoonaado inuusan gamcihiisa uusan taabsin afka sanka iyo maxaan ku raatay indhaha intaas uusan taabsin cudurkan ilaahay ha naga hayo waxa ugu badan oo lagu la tacaali karo in lagu hortago oo prevention la sameeyo oo intaas ay bulshada ku wacyigelinato waa in marka aad joogtid meelaha bulshada ay joogto kaleeto inaan qofka markuu qufacayo kaleeto aad si toos uusan contactiga afkaaga iyo indhihiisa isku yeelan kaleeto aad ka dadbanaatid ama qofku markuu qufacayo kaleeto iman adiga tahay xataa inaad isticmaashid maxaa ku raadto hadda mask iska haysan gacantaada halkeeda kale inaad marka qufacayso kaleeto ama hindisayso kaleeto inaad isticmaashid markasta oo banaanka u baxdid iyo markasta oo ka soo timaadna gacmahaaga waa inaad dhaqdaan nadiifisaa adoo adeegsanaysid wax kasta oo germs dilay oo guriga ku yaal soona qaadanaysid mid ugu dambayso ee bulshada islaamka iyo bulshada muslimiinta Soomaaliyeed baa kula dardaarmana waxay tahay alla ka cabsi cudurkan waxa ugu badan oo maanta ku faafay waxa waaye bulshada islaamka ahayd oo waxyaabo aan ilaahay jeclaysan sameynayso alla ka cabsiga in lagu dadaalo qofka quraanka in guriyaha lagu aqristo
inaan la sameynin maxaan ku raadto waxyaabaha qadafka oo kaleeto keenayo oo kaleeto cudurrada noocaan oo kaleeto ay ku faafi karaan in la iska yareeyo ilaahay cabsigiisa la badiyo ilaahayna loo soo laabto ilaahayna waxaan ka baryaynaa cudurkaani inuu midkii noogu horreeyey ama noogu dambeeyey inuu ka dhigo intaasaan kusoo xiraya insha allah waxaan la soo socodsiinaya aniga walaalkii deeq axmed shiraah waana mahadsantihiin gabagabadii halkaad naga daawanayseen waa Hogal Channel fadlan nagu taageer subscribe like comment si aanu dhiirigelin kaga sii qaadano idinkuna soo gudbino waxyaabaha aad ka dahsoon tihiin waa mahadsantihiin bulshada nada sharafta leh